مدن آدم فارح إبراهيم أفاينك أقلك فدريشنك أقلك السريع دلك لغة اليوم مدحضة كلا دولة هاتن شوكتا مدحضة قميتك هاوينك iyo dhamaan intiina caawa ka soo qayb gashay xafladan aan ku ambaabixinayno mudane aadan oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii deegaanka intii hadda isbedel kadib horeyna uga soo shaqeeyey isla mas-uuliyaddaas dhammaantiin soo dhawaada waad mahadsantiin runtii wixii aan oran lahaa ee ku saabsanaa mudane aadan dadkii iga horreeyey baa sheegay waxaana fiican ammaanta ugu wanaagsani waa ammaanta adigoo meesha joogin laga sheego oo horta gadaasha laga yidhaahdaa ugu fiican laakiin shaqooyinkii uu qabtay aan runtii inta halkan aan fadhiyin aan joogin hadhow ka daawan doonta ilaacadaha loo bayaamiyo waxaan isleeyahay waa muhiim marka ugu horeysa waxaan anigu shaksiyan u arkaa aadan inuu ahaa oo dhaxaadkii ama tiirkii isbeddelkan deegaanka khibrad ballaaran uu lahaa dhanka maamulka ugu higay dadkiisa marxaladihii adkaa ee isbeddelkii intii hadda aan ku jirnayna in laga soo gudbo runtii kaalin lixaad leh ka ciyaaray dhab ahaan shacabka deegaanka soomaalida waxgaradka aqoonyahanka iyo cid walba kaalin bay ka ciyaartay laakiin kaalin libaaxa oo aada u muuqatay oo dhisidii system dawliga inuu ka dhasho halkan aadan kaalin hormooda ayuu ka ahaa sidii horey loo sheegay aada iyo aad ayuu arrintaa ugu mahadsan yahay markii hadda ay timid fursaddan soo baxdayna annagu maanaan filayn waxaan u tagna waxay ahayd shirkii aqalka federationka oo lagaga hadlayay arrintii doorashadii dib loo dhigay iyo in waktigii dowladda lagu daro laakiin markii ay soo baxday casilaadani in maartay la buuxinayo afayeenka marka hore waxaan islahay ku-xigeen waa la sii wadayaa un waxaa timid inaan u aragno in soomaaliya ay tahay meesha inuu yimaado dowladdanu laftigeedu fikirkaas ay soo dhaweysay kadibna xilli yaroo gaaban gudaheed inaan cid keeno naloo sheegay inta badan dhaqankii deegaankeena ka jiray dee wakti gaabanoo saacad gudaheeda qof inuu go-aan intaa lee ku gaadho wax iska caadiya maaha laakiin runaantii aadan waxaan aada ugu macalcelinayaa marka iyadaaba waxaanu haylaga marayna waqti yar ku qadiyay inaan ku tashano maxaan yeelaa iyadoo markaana aan ka fikirayno isbeddelkan ka socda deegaanku dad isla qabsaday oo isfahmaya oo wada socon kara inay udan u yahay oo laga yaabo in walbahaari ka yimaado haddii dadkii kala tagaan maxaa dhiman doona laftigeeda inaan isweydiino markaana uu mudane aadan soo jeediyey meeshan boos weyn oo soomaaliyeed weeyaan booskaas inaan khasaarino maaha waa inaan qaadano wixii kale ee go-aan u baahan bixinteeda iyo sidii loo marin lahaana hadhow aan ka wada hadlo marka taana waxay muujinaysaa un dhaqankii halkan aan ku arkeynay ahaa wax walba inuu ka eego danta ummadda soomaaliyeed runtii anaan la shaqeynayay shaqooyinka isagu qabanayo marna maskaxdeeda kuma soo dhacaynin in wax aan ahayn dad ummad soomaaliyeed ama dan system hagaajin uu ka leeyahay maskaxdeeda kuma soo dhacayn marka kalsooniyintaa leeg qofka inaad ku qabtana wax weyn weeyaan shaqooyinka uu halkan ka qabtayna sidii ay sheegeen tiimkii iga horreeyey waa kuwa loo aari doono oo wanaagsan annaguna abaalgudka ugu muhiimsan ee arrinta aan ka geysan karnaa waa inaan sii wadno systemkii dhisnaa ee halkan ka dhisnaa oo sii qurxino oo sii hagaajino oo wax maaragtay berika maalinta annaguna xaflad noocan oo kale insha allah aanu kaga tegayna meesha waxaan rajeynaa inaan diyaarad noogu qaadin halkan kale ku dhiibaan rajeynayna maalinkaas inaad iyaduna ay noqoto meel inaan soo gaarsiinay oo maaragtay system caadi oo wanaagsan uu deegaanku helo oo la barto dhaqan sidoo kaleeta isku wareejiyo xukunku uu noqdo wax ummadda loogu adeego oo inta aad joogto waxaad qaban kartaan qabato si iyo qalab wixii doonay ummaddu ha u fasirato qof eed qaadan wuxuu ka iman karaan laakiin system noocaas oo dowli u dhismo waa inta hore intii inaga maarata dhibaatooyin ay naga haysteen maadaama dhanka ismaamulka caqabada ay ka jireen oo qofku intuu joogiyo shaqeynay laftigeedu ay ahayd mid maaragtay buuq iyo qalalaas mar walba uu ku jiro taas marka mar kale aadan waxaan leeyahay waad mahadsan tahay laa shukran calaa waajib ummaddaada ayaad maaragtay ugu adeegtay arrimahaas
أنت سويدين ساحل كون حلقة شقوي بهين هذا رنتي حلقة كيد إن ترتب واحد له ولا جاي الوقت كمان برنامج كهذا من أمور كيننا برنامج واحد يكترني ترتيب جوا كتير كهذا جيبوها أو رنتي لو دعوا أقل يسوي غالي كانوا هاك العشرة واحد كتاب كشيء يسوي من هاي مرة صار يتد للاي أو بيتكون وعياري ووصل إلى إمارتي وحقبها لكن من الدنيا هاي تهاي إن شركة إيه سوق كي واحد محتوى معها حقبها أنت عصوقف أيام بدل فكر كولا أما أنت عصوقف أيام مرت اللي بالبادي أنت عصوقف بالدليل وحقبها معها واربعته شعب قاعدي يومكي واجد اللي تقفكي دبعتك جيسة أبن الدين نقطة إيه الكيسة اللي هو كان حب أما لو دبعتي ضلتي كهذا هالكاس كل الحلو أن هايو هي أو ممكن أن شباس هذا الشيء اللي هي متكون يصير بدل كورلا مركا أجي أكون مسيري سيدي هذا الشيء سويتنا ومطبعين هول كله يواجهات كله وشقه والله إذا هول كله هل كده كوهي تيم كوكتر سينه حزبي كوكتر تشري وغير كيهي مركا واحد رجينا إن هولي هل كهي هول كده من سنترالك وقصي قبضه قارهان أقل كاوتيري وأقل بجت لو قيسه وأقل كوقان السيريا لو قاميو مركا كل جسمي دي فهم كذي خبرتي دي أقول تري ترى وين هاي تعالوا مرتي عن سن هاي الباب أفر دونتو إن كرسونا الوقا وهجاني تلك أو قبل تشيو تظهر بنا وهجاني تكمل دي هاي كتابة دونا تعالوا كل سيرة عن طلع حديدا تنتظر صواري إديانك أنا أنت بالواقع وتوصل أو قلقاتنا قريب حاولنا شعب مصر الصومالية ديان كلمة ولا ينفرستيب له بدو حاولنا نسوي اسمه سحور يسمى عمره قالوا يسمى برنامجه شعب كا وديان كل الرجال يا قويها يا مقامين يعرفوا إن ترى ديان كل كبود اسمعوا ترى حاولي إن بها كل حقوده تلك إثيوبيا أي كهان سيسنان الحرية يوم عسني runtii haddii aan ku horeeyo tallabaad isbeddelka kadib waxyaalo muuqda laga qabtana jira waxaan ka soo bilaabi karnaa kaalintii ugu horreysay ee laga qaatay in xaqa aan ku leenahay shidaalka la soo dhiciyo dad fara badan baa waxaa jira oo mugdi kaga jiro boqolkiiba 50 baa shidaalka deegaanka loo ogolaaday laakiin haddaas waa in la sharciyey oo qoran oo maaragtay aqalka federationku uu ku dhawaaqay hadda ka hor وأنا أروح أعتمد على الوجه الباقي والشام وشلالكم كاس ليش يسوي شيء هذا ما يمكن أن يصير شركة أنت لو تبيسي يقول لي جوكتها وهذا الأول اللي هو صوص على شرعي كل سؤال بسيط من سؤال كتابة إثيوبيا القري أو دولة الفدرالية أو كل سوري سي موجود وقطربانا كمان في شلال قصاصم يا خيرات المعدن تورن خيرات أورن إن فدرالهم دخل القاتان وحركة ولاية كل مسؤول أصبر كنتونا شرعياس أو دستور كحلية بدليلتيس لكن عن شعب هو صبرين سيدا دوتي هو شرع النقل مثلا وقر المجاري جاز سامح عليها والجيس كان وصل صاروا لو نقرين لكن مين الأهم بالله صبرين مكا أدلت هو حتى شركة المثال أن الله يقول يعني مكا حاول كنا هل كان لقب الله الحق يبدأ الله طوره وحاول قبتي دين عن ثلاثة هاي الفدرال ما أنت مكا ديتان وزيدة يزكحيين عليها هاي حق دولته آليات وفي عنتها ما كبيرة ترى لكن ما هي شباب مرة كنت أرتو أكما تجيء قلت يوم ما هاي الله حتى كور درس خلدا يشتري يوم قولي لهم شو يشتري الله نحرس دكتور صار هاي كل الجاب بيجي شو يتوقعون لكن كحيين بوها مرة ولك يوم رئيسي يبغى صومالي ترى سودية وكقبته تلك إثيوبيا وقوس يقولون فيها وهذا هو يوم الميزان عنصر هاي ترى لي حزبية ترى هاي فدرالك إلى هاي فدرال ميسك الفريق وما تعملنا شيء فرط الحكومات وراجعها يو سجال حكومات وراجعها وعدوا مك حزبية تروح هذا إنترنت أساس كمان لكن كل تعلف تجد واحد مرتين موجنا يا ميزان عنص يدور عنص عدك الصومال من سنة كريم جاي تاسمك waxaa dheer in sadarkan ay tahay sanadkii jireedkii ugu badnaa laga fulinayo dalka deegaanka laga fulinayo marka deegaan soomaali ahaan loo eego walow dhinaca electriga iyo internetka iyo airboardada
iyo communicationka iyo xalal la xiriira guddoomiyooyin ballaaran jiraan oo sida jidadka aynan hay-adahaasi shaqeyn horay weli u qaban taana shirka u dambaysa hadda oo dadka maamula ay joogeen lagaga hadlay haddana in dhinaca jidadka isbeddel fiican ka bilowda oo jidad badan oo laamiga laga qabanaya deegaanka sanadka iyo sanadada soo socda isbeddel ka muuqdo marka dhinaca marka laga eego isbeddel wanaagsan oo fiican baa xagga ka soo kordhay taasna nolosha dadka waxbay ka bedelaysaa inta badan waxoogaa miisaanada deegaanka loo soo diri jiray taan baa laysku haystay laakiin deegaanada kale waxay ka faa'iidi jireen miisaaniyadda keliya ma ahayne waxay ahayd hay-adahan kale ee horumarintu ama jidadka ha noqdaan ama electriga ha noqdaan ama ha noqdaan kuwa maarata irrigationka shaqooyinka heer federaal ay qabtaan taas oo u baahan dood in loo sameeyo ama la dalbado ama la ogaado wax meesha ka jira oo hadda ka hor aan jiri jirin maadaama la eegin jiray inta yar miisaaniyadda deegaanka timaado la isku eegin jiray dhankaan isbeddel baa ka jira dhinaca deegaanka waxaan aaminsanahay in si ka wanaagsan sidii hore xorriyadda dadku ay fiican tahay iyadoo duruufaha isbeddelku keenana ay sideeda u jiraan haddana hogaamintu waxay ku dadaasheen dadkooda uga faa'iidayso isbeddelkaas meelaha qaarkood way jiraan meelo etoobiyada oo laga yaabo xorriyadda halkan ka jirta ayna ka jirin xuquuqaha hadda dadku haystaan ayna ka jirin baa laga yaaba inay jiraan marka isbeddelka keliya keeda lama oran karo ka go-naanshihiida hogaaminta laftigeeda in dadku ay si xoora fikirkooda u sheegtaan in si nabadgelyaha dadku ururada mucaarad ku dhaqdhaqaaqaan in maaragtay ismaamul dhan meeshii ka hirgalo oo go-aanada la qaadanaya noqdaan go-aano dad soomaaliya ka imanaya in kale xidhiidhadii aan caafimaadka qabin dhex mari jiray hay-adaha qaarkood iyo hogaaminta laga xoroobo waxyaalahaas oo dhan runtii waxyaalo badan baa laga qabtay halgan badanna laga soo galay boqolkiiba boqol wixii la rabo dhan baa say u fuliyo lagu odhan karo dhaqan siyaasadeed iyo deegaanka ka jira ama ka jiri jiray wuxuu keenayaa guddoomiye dhinac walba ama ururada mucaaradka ha noqdaan ama ha noqoto xagga dowladda marka jijiidad iyo isfaham la-aan iyo xorriyadii oo laga yaabo in dadku sidaa khaldan u fahmaan ama laga yaabo ururada mucaaradka laftooda dowladdii qaabka waddankaas u arkaan qaab maaragtay sidii ay dhiban ahayn waa iman kartaa laakiin cidna maanta lama masayn karto xilliyadiina soo marin lixdameeyadii sano ee deegaankaasi jiray xilli halkan fikradii maanta laga sheegayay ee ku saabsan sababo laga sheegi karayay nama soo marin waa bilow fiican waa mid ina diriigaya u baahan waxaa aad ugu faraxsannahay in dadka inuu si xor ay u hadlayaan fikirku inuu sax yahay uu khalad yahay muhiim ma aha laakiin inuu si xor qof u hadlayo wax walbahaari caawina ka haysan fikirkiisa uu sheegtay dhaleecaynaya ciduu rabo waa wax runtii maaragtay alxamdulilah in layidhaa ay tahay waxaana noolka inay leeyihiin laakiin ugu yaraan wax noo soo kordhin weeye waa inaan acknowledge garayno waa inaan aqbalno taas ahaan dhinaca wixii isbeddelka kadib laga qabtay kolley legacygu marka uu qofku meesha ka tago unbaa ay iman doontaa ama hogaaminta meesha joogtaa maadaama si tiim hadda loo shaqeeyo qof gaara oo inkastoo dhaqanka soomaalidu yahay in qof gaara wanaagga iyo xumaantaba loo saaro haddana dee mas-uuliyadda hadda aanu haynaa waa mid runtii si dad fara badan wanaaggan ay qayb ka yihiin xumaantana ay ka yihiin ma ayna idka cararnahay waxyaalaha xun oo leenahay ama waxa wanaag dhan qabanaan leenahay laakiin sida u taasaasa waxaan aaminsanahay in wax badan laga qabtay nabadgelyada walow ay caqabada jiraan oo weliba isku dhacyada qabaayilka hadda badankooda muxuu ay yihiin kuwo siyaasadaysan oo maaragtay jeedooyin siyaasadeed loo sameynayo dadka masaakiinta dad isleynaya ayna ahayn ama kuwa la dhaxlay oo cadhooyin hore oo jira ka imanaya ama kuwa dad moodayso waxay ku farayaan adeegarayn oo weliba qaarkood diaspora u badan ay horeynayaan oo lacag la soo dirayo haddana wax badan baa laga qabtay 99 goobood meel ku dhawaadaan u maleynaya inay ahayd meelihii isku dhacyo qabiilaan inay ka dhacaan aan ka cabsanayni meelaha qaarkood ka qarxeen nasiib darro laga yaabo in kahortag xaggiisa ka jireen ama sidii loo rabay laakiin guud ahaan dadaal badan baa laga wadaa xalka saxdii laakiin wuxuu ku imanayaa markay dhammaanteen aan u guntano in dowladnimada rasmiga la sameeyo dhinaca dhisidda haykalkii dowladda iyo soo celintii nidaamkii wax badan baa laga qabtay laakiin weli tayada adeega la bixinta dhalinyarada ka jira dhinaca kale tayada hay-adaha dawliga ay soo dhisan yihiin iyo qaabka iyo systemku yahay sida dacad baa ka muuqda qayba garowshaan la odhan karaa waa wax maaragtay 720 sano aan la dhisin hadda la bilaabayo dabcan dalkeenu waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan dowladda soo dhisnayd laakiin xisbigii talada hayay waxyaalihii isku dhalilay isagu qaatay waxaa ka mid ahaa 720 sano system dawli oo maaragtay institution wax la yidhaha maynaan dhisin
يوصل عنه وقيمته دويتها مركا تادل كبوت كتير إنه ديان كينا أي كسي تبع توي سنة دولة أوكي بمثل كلامي هاي ما نسي دبعتهم عليه هالكم سبدو كذا علمه دولة توي كسنة دولة سيان عادم دولة بقولي هاي دولة حوي إن تروي قرآن ملك قرآن إن هذا سيستم ينظم كمارتك ما برنامج أو شقين ونشري هاي قال هذا إن هيدوه أشوفه كل قصان الله فين دون ما يشربه والله قابتيمه قاب كيلو كي مارتك تلتشيب هاي هاي قيد مارتك دونيمه وأريج عيتاي هاي لو فهمه أما إن تعدي الله سبحانه وتعالى لقى عبسي وراقته يا لقاري لكن شعب كانوا يبتسمون صومي سين شيء وإن لو صبروا سرية الشرعية لا يعلم بدونين في تيران أو سين وراها حرية حقيقة عن تطبق بينه إن بالانس حرية سرية الشرع وإنه يرلو لي ولا جاوا لكن سيدا لسه علمي مارتي إن تذكر مع قيبك هذا مضياشة يقولون كي يهجعون يا مهمة gudahaan waxaan aaminsanahay siyaasadaha dalka hogaamintii wax la qabsan lahayd way jirtaa ururada mucaaradka ama ururada tartamayaasha oo iyaguna deegaanka jooga oo caalamkan nala fadhiya waa bilow cusub madal noocan oo kala oo dadka laga yaabo aragti siyaasadeed u kala duwan yihiin ay meesha wada joogaan aragti siyaasadeed lagu kala duwanaado laakiin dad Soomaali walaal leeyahay waxaa wanaaga anugu asleen kala rabtaan bay idinku la rabtaan العرض الاستقصاده والحالي الاستكا شكر والاستكا شرو وهي اللي سكوفها وترتبه وحلال وسياسة سياسة هدوك أيهين أنا ما هم باقينا إنه بحي سيدة هذا لقاها هذه الهوري صومالي إنترست جود أيام هاي سيد جود لقاها وحي ترتم كراسي ومنصب الله حديثنا حلال ويان عيب ما هو إنه ترتمه لكن وحي اليوم بدون تروح كمية هذه جيدة جود هيد فدرال لقاها قادنا يقول عمر إيمانية سيدة والله كلام dhankaas waxaan raysanayaa in baldooriyada ka jireen dhanka xisbiyada mucaaradka oo aan u arkaynay in ilaa hadda ajendayaal waaweyn oo aan qaadanay oo ama ha noqdaan kuraastii baarlamaanka in la soo celiyo ee laga hadlay 32 aan inagu lahayn ha noqdo ama arrimaha shidaalka boqolkiiba 50 ha noqdaan ama arrimaha kale ee la xiriira boordarada ha noqdaan sidii horeyna codkii loo baahnaa laga helay baan anagu u arkaynaya oo taasoo kale in ay noqon lahayd wax iska kaashan karo haddii cod balaaran oo ka sareeya halka xisbiga talada haya hadii la keeni lahaa arrintii laga hadlayay Soomaaliya matalaya Soomaaliya xisbiga la beekayo lagu matali karo waxaa lagu matalayaa in sabab wada taabo talada sabab liiska meesha lagu gooyo la fadhiyo cadaynta hadda aan haynaa waxa weeye in fadhigii meesha la fadhiyo wax badan u bedeli qaybsigii u bedeli quraasigii u bedeli inay muuqato ayaan aaminsanahay laakiin haddana haddii loo fikiro maya bal kuwaas waxaa laga yaabaa inay xisbi heer qaranada dhex fadhiyaan xisbi heer deegaan oo wadanaha Soomaaliya si khaas ugu dooda waa loo baahan yahay laftigeedana waa door caafimaad qabta dhibaato maaha waa soo dhaweynayna insha Allah diyaariya marka ugu horeysa diyaar ay noqoto doorashooyinkuna shacabkan inay tartamaan iyo doorasho la galo ilaa la ciidii ku kalsooni lagu wareejiyo taariikhda ay noo gashay inaan dad magaranaysa dimuqraadi ahaan dadkoodii taladii ku wareejiyey dagaal dambiyo ku qudmaan gelin وأنا رجعنا وحين نرى خلطان ونرى خلطان دونا برينة إنه لو تقاطه وحين نرى صحه وحين أول شيء إنه نقدر نشتغل بهنا عندك خبرات دار ومتابعينتي حتى لو ما أنت نشوفه إن تلقى سياسة وحضارة عن بلونه وأخلاقياتها وهاي ما فقط بينتا وحاسو وحنا نقول أنا بيشو أخلاقهم بورتي بشيء أخلاقهم بكرة وكوب ويسوع وهجازية تأمرك بينتا دمجة واحد فرح بالمعاصي واحد كلمة جنرالي جنرالي سوسايتي أنا بشيء مبابي وأخلاق ريدي يوحي ونقدر يسكون تبغى كل شيء تعالوا نتابع إن شاء الله هدي اللي نقولنا ضد هدايا سياسة حكومة ما تفتما وهبيس هذا لكن ويرافع من يقول هذا يهين سياسة قيد متعدد الشهود قيد فرقان سياسة هاي نيتان تعالوا إن شاء الله نقطة دان كلو مركلة دور هذا الطرح وطمع صوت الشغل كان كقوته وهرجينا كل ملا إن تقوى ضد فدرالك إلى هاي متصل على قلبي ولا هاي تصو إلى هاي بارك الهم ديرو عدنا من دول التعاشر لكن أعرفنا ممكن الدول هاي عيبنا معها وفر بصور وناقي وهذا الموضوع على فكرة مخالف ماركو على سوق الغاطو وهو وراها ملا وراها تطمياشا أي
raalli kuwa ka ahaan karaan hadday noqoto tartan hadday noqoto wada shaqayn xukuumadda diyaar bay la tahay wanaagsantii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar, xubnaha kaabineetka dowladda deegaanka Soomaalida, hogaaminta iyo xubnaha guddiyada joogtada ee golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida, madaxda axsaabta siyaasadeed, odayaasha dhaqanka, culimada diinka, ganacsatada, marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan, mudanayaal iyo marwooyin, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib, ilaahay baa mahad leh oo ina siiyey fursaddan aynu caawa iskugu nimid. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigii soo qabanqaabiyey iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan sida heerka sare loo soo agaasimay. sidaad ii sharafteen ilaahay ha idiin sharfo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. deegaanka intuu isbeddel ka dhicin ka hor ayaa waxaa laygu yidhi waxaan rabnaa inaad ka qayb qaadato isbeddelka deegaanka oo aada noqoto madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida. waxaan ugu jawaabay anigu muddo badan baan ka soo shaqaynayay dowladda deegaanka Soomaalida iyo ismaamulka Dirdhawaba. jagada madaxweyne ku-xigeennimadana horey baan u soo maray. saas darteed hadda diyaar uma yihi inaan qabto xilkaas, balse si dhibaatooyinkii ballaadhnaa iyo tacadigii shacabka loo geysanayay looga baxo oo shacabka deegaanka Soomaalida loogu hogaamiyo nidaam xisbinimo iyo mid dowladnimo, waxaa laga maarmaan ah in tallaabooyin sixitaana la qaado oo isbeddel ka dhaco deegaanka. saas darteed inaad arrintaas ku fikirtaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. waxaanan diyaar u ahay inaan ka qayb qaato isbeddelka deegaanka, balse ma rabo inaan xilkaa qabto. si kasta oon uga qayb qaadan karo isbeddelka diyaar baan u ahay. way iga go-an tahay inaan ka qayb qaato. waa layga diiday, kaama yeelaynaa layidhi. waa inaad xilkaa qabataa. hogaaminta cusub ee imanaysana maadaama in badan dowladda kasoo shaqaynaysa xilal kala duwan aad soo qabatay, hogaamintaada inaad la shaqayso. kadibna muddo kadib baynu ka wada hadlaynaa baa laygu yidhi. dood kadib waan ku qancay, waan ka ogolaaday inaan xilka qabto. markii aan deegaanka imid waxaan la kulmay hogaamin dhalinyaro ah, aqoon-yahana, u danqasho shacab leh oo ay ka go-an tahay inay isbeddel la taaban karo nolosha shacabka ku keenaan oo ay ummadooda wax u qabtaan. runaantii aad iyo aad baan ugu farxay. muddadii aan la shaqaynayna aqoon iyo waayo-aragnimo ballaaran baa iga soo kordhay oo shaqada hadda aan ama xilka hadda lai magacaabay ama lai doortay iyo noloshayda dambeba aad iyo aad ii anfacaya. hawl kastoonu qabanayno wadajir baynu u qabanaynay. maadaamaan bartilmaameed ka dhigan jirnay danta ummadda, danta shacabka, arrimaha qaarkood inaan aada uga doodno, ku kala aragti duwanaana laga yaabay, balse ugu dambeynta wax kasta maadaamaanu ka fiirinaynay danta ummadda waanu ku heshiin jirnay. shaqo qaybsi cad baanu samayn jirnay. cid kastana shaqada loo diro si daacada oo isxilqaan iyo ka go-naansho leh ayay u gudan jirtay. saas darteed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
inaan hogaaminta waqti xaadirkan deegaanka joogta aan jaanis u helo ama fursad u helo inaan la shaqeeyo waxaanan boqolkiiba boqol aaminsanahay shaqooyinkii aynu wadajir u bilownay inay sii wadi doonaan sii xoojin doonaan oo ay ka midho dhalin doonaan inkastoo waqtigaynu haysano noo saamaxayn inaan dhammaan hogaaminta oo dhan waxyaabihii aan soo wada qabanay iyo wixaan ku soo arkay aan halkan ka sheego balse waxaan tusaale u soo qaadanayaa madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar waxaan qabaa inuu yahay hogaamiye soomaalinimadu ay ka dhab tahay bahdilkii iyo xaqiraadii shacabka soomaaliyeed lagu hayay inuu shacabkeenu ka baxo had iyo habeen ku howlan fikirkii khaldanaa ee qaybaha kala duwan ee dalkeenu ka aaminsanaayeen hogaaminta iyo shacabka soomaaliyeed inuu meesha ka baxo oo maanta Itoobiya dhexdeeda soomaalida iyo hogaamintooduba ay magac fiican iyo sumcad fiican ku yeeshaan dadaal ballaaran buu u soo galay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waan ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo hogaamiye noocaas oo kale muddadii koobnayd ee wada joognay hogaaminta dowladda deegaanka soomaalida ee waqti xaadirkan waxaan qabaa howlo ballaaran oo shacabka soomaaliyeed waxtar weyn u leh ayaa inoo qabsoomay gaar ahaan marka aynu ka fiirino dhibaatooyinkii ballaarnaa ee aynu ka dhaxalay nidaamyadii hore marka aynu garwaaqsano deegaankeenu inuu ahaa deegaan loogu talagalay inuu ku dhaco burbur aan laga soo kaban karin shaqooyinkii noo qabsoomay muddadii 2 sano ku dhoweyd waxaan ku tilmaamayaa shaqooyin aad iyo aad u wanaagsan inay ahaayeen oo lagu tiirsaday taas macnaheedu kama dhigno baahidii shacabka rabitaankii shacabka iyo dhibaatooyinkii ahayd inaynu xallinno sidii la rabay waa loo wada xalliyey waa laga wada gudbay dhibaatooyinkii kama dhigno balse isbeddel wanaagsan baa jira wax badan baa weli noo dhiman hogaaminta hadda joogtana inay shaqooyinkaas sii xoojin doonaan oo ay ka midho dhalin doonaan yaan ku rajo weynaa dhinaca kale heer qaran bahdilkii iyo xaqiraadii shacabkeena lagu hayo ee lagu hayn jiray in laga baxo isbeddel baa ka jira balse wax badan baa ka dhiman xuquuqda siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee aynu waddanka ku leenahay si aynu u helo waxaa loo baahan yahay hogaaminta iyo shacabku inay isku duubnaadaan midnimo yeeshaan danta guud ka wada shaqeeyaan oo aan laga gaban wixii aan xaq u leenahay fagaaro kasta iyo fursad kastoo la helo in laga faa'iidaysto si ay nagu soo dhicinno shacabkeenu xaqiisa ama xuquuqda ku leeyahay dalka aniguna mas-uuliyadda cusub ee la ii doortay waxaan ku dadaali doonaa sidii la rabay inaan uga soo baxo hab sharafta iyo sumcadda soomaaliyeed kor u qaadaysa inaan xilliga waajibaadkayga u guto sidoo kale wixii cadaalada ee shacabkeenu xaq u leeyahayna siduu heli lahaa inaan ka shaqayn doono ayaan idiin ballan qaadayaa sidoo kale sidaan horeyba hogaaminta deegaanka iyo shacabka ula shaqayn jiray ayaanu la sii shaqayn doonaa insha allah haddii la yidhaaho muddadii aan xilka madaxweyne ku-xigeenimada hayay hogaamintii aan la shaqaynayay iyo dhammaan shaqaalaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulsho anoo wax wanaajis leh anigoo isle danta ummadda ka shaqee cid aan ku gafay hadday jirto waan ka raalli gelinayaa waxaanan idinka codsanayaa dhammaantiin xilli waajibaadkii saarnaa inkastoo anigu aan ku dadaalayay
inaan waqtigayga waayo aragnimadayda iyo aqoontayda shacabkayga uga faa'iideeyo oo daqiiqad kasta waxaan ummadda kusoo kordhin karo inaan kusoo kordhiyo aan ku dadaalayay waxyaabahan ka gaabiya hadday jiraan xilli waajibaadsi saarnaa oo aan sii rabay u gudan hadduu jiro dhibaatooyin inaan xalliyo ay ahayd oo aan xallin hadday jiraan raalligelin baan ka bixinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu abalkoodu wuxuu yahay ama nagu xasuuste waa laydin aaminay idinkoo aqoon inamada la doortiyo abandulahoodow awmada xilkeediyo amaana idin saarane waxaan aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka sharafta badan ee lagu sagootinayo madaxweyne ku-xigeenkii hore deegaanka afhayeenka golaha federationka walaalkeen aadan faarax ibraahim aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqadii quruxda badnayd ee deegaanka ka haysayna mar walba xasuustayada way ku jiraysaa taad u socoto qaranka Itoobiya aad u qabanaysana ilaahay waxaan kaaga baryaynaa sidoo sheekhu sheegay in ilaahay kuu fududeeyo hawlahaaga waana boos weyn oo filaynay inuu yimaado kuwa badan oo kale oo inaga maqan dalkana inuu furo u noqon karo ayaan aaminsanahay bilow fiican oo xisbigu uu qaatay PPW waxaana leenahay waxyaalo badan oo ummadda Soomaaliyeed ay lahayd miftaax u yahay cidii ka soo shaqeysayna waan uga mahad celinaynaa inta ka sakow aadan intii uu deegaankeena joogay hawlo badan oo lagu diirsaday ayuu deegaanka ka qabtay hawlaha aad u qabatay ummadaada aad u qabatay mar walbana waxay ku noqonayaan legacy fiican oo ka tagtay annagana waxaanu ku rajaynaynaa hawlaha kale ee qabanayso in Ilaahay kuu fududeeyo mas'uuliyiinta kale ee deegaanka iyo inteena haraysana waxaan ka rajaynaynaa isku duubnidii iyo wada shaqayntii fiicnayd in xagga laga sii wado hawlihii madaxweyne ku-xigeenku ka tagayna in la sii amba qaado ayaan iyagana kula dardaarmayaa hadal badan meesha ma yaallo waa sagootin madaxweyne ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka waxaan leenahay allah ku nabadgeliyo hawshan allah ku fududeydiyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi